waxa way sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxu maqleynay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhi sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuu san ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo waxaan idin ka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa way sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur in uu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso in uu ka qayb galo xaraan ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganayo dhan marka waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxu maqleynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socdo hadii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad amaanka asugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay amaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas'uuliyadda intaas waa bis wax kale laga maro amaanka sug dawladda cid allaal cid ay keensatana waxaad ku qasban tahay inaad dawladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idin ka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya marka dadka u dhaxeys maxaa sameynaysaa waxaad sameynaysaa qof kasto amaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas'uulka aad ka tahay amaankiisa inaad sugtaa mas'uuliyad ay tahay marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhi sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuu san ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo waxaan idin ka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya marka dadka u dhaxeys maxaa sameynaysaa waxaad sameynaysaa qof kasto amaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas'uulka aad ka tahay amaankiisa inaad sugtaa mas'uuliyad ay tahay marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhi sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuu san ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo